burco oo ahayd goobtii lagaga dhawaaqay gooniisutaaga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa subaxnimadii hore ee saaka kumanaan ka mid ah bulshooyinka magaalada burco waxay isugu soo baxeen sanad guurada 18aad ee xuska munaasabadda 18 May burco oo munaasabadda 18 May lagu qabtay garoonka diyaaradaha waxa ugu horeyn goobtaasi socod dheer ku maray cutubyo ka tirsan ciidamada militariga iyo booliska ee gobolka Togdheer iyagoo salaan sharaf siiyay madaxdii dawladda ee goobtaasi ku sugnayd shaqaalaha dawladda ee wasaaradaha kala duwan ururada bulshada rayidka ah iskuulada iyo maamulka iyo ardayda jaamacadda burco oo ku labisan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa goobtaasi socod dheer ku maray iyadoo ay sidoo kale halkaasi socod ku mareen ardayda mutadawiciinta ah ee ururka bisha cas ee gobolka Togdheer maayirka degmada burco Maxamed Muraad barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaaleeye iyo mas'uuliyiin ka socotay xisbiyada kulmiye iyo ucid ayaa ka hadlay munaasabadda 18 May wixii Soomaaliland qaar kamida iyo Soomaaliba aanu ka saamaxnay ee aanu samirka ka qaadanay ee aanu walaalnimada ka qaadanay ee aanu nabadda ka qaadanay ee aanu horumarka ka qaadanay ee aanu wada jirka qaranka Soomaaliland ka qaadanay ee aanu nabad kula noolaanshaha Soomaaliya la yiraahdo nabad ku wada noolaashahooda iyo inaan daris wanaagsan ahaano aanu ka qaadanay oo ah 50,000 oo inan oo ku baxay dagaalkii 10 sanadood soconay 28 sano kadib cidda maanta maalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland wax ka sheegaysa ee waxa weeyaan cambaaraynaysa waxaanu leenahay hoonbara libaax bay soo wadaa waxaanu leenahay waan idinka shishaynaa waananu idinka sokaynaa nalama dagi doono mu'minka laba jeer god lagama wada qaliino ku quuso quraantoy horta xukuumaddu way hagrataan leeyahay gobolka Togdheer xaqeedii ma aysiin gurigii calanka laga saaray baan xaqiisii ka muuqan xukuumadda Muuse Biixi waxaan kula dardaarmayaa gobolka Togdheer ictiraafa qof kastaaba qarannimada xil baa ka saaran ama ha yaraado ama ha weynaade waxaan markaa leeyahay waynaynu qarannimada ilaalinaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Boos Mire Maxamed iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Marwahinda Jaamac Gaani iyo wasiirro kale ayaa iyaguna ka hadlay gabagabadii munaasabadda 18 May waxa halkan hadaba jira dad aan halganka inalaba joogin oo haday doonaan inaga ah oo aan habeen la xagan oo ilmihiisa qixin oo ilma kaga dhiman oo quruxdooda aad yaabaysid oo dhalayo waa laga wada hadli karaa 18 May lagama wada hadli karo ma gelayso gorgortan kuwa koonfurta ee Facebookada ku aragtaan waxay yiraahdaan wali la idin ma ixtiraafin 18 sanadood baad joogteen boqol haddaanu joogayno waxa la wax naga maqan baan jirin xorriyad baanu ku joognaa dhulka iyagii isteeshanadana laguma xidho horumarkana annaga haysana waxaan leeyahay dhakool maalinaan maanta ahayn bay ahayd in lagu qabto oo xabsiga lagu dhigo ayay ahayd waxaad ka mid tahay dadka ku suntan inay ka degi weyday ama lugta haya Soomaaliland waxaad ku suntan tahay qasaaraha gobolka Sool ka dhacay ee naf iyo maalba leh dadka geysta ee iyagu ka dambeeya ee ku biilqaatabaad ku suntan tahay waqtigaas ay ahayd in xabsiga lagu dhigo dulqaadka iyo isu tanaasulka iyo isjacaylka Soomaaliland darteed ayaa mudane xildhibaan lagugu yeedhay adigoon u qalmin Bashir Xaaji Ibraahin Home Cable TV Burco